naarta aakhiro wixii dhici doono kalama jeclo yayaa nuurtooy yayaa nuurtooy madaxaan kaa xiiraa wallaahi madaxaan kaa xiiraa wallaahi aad baan idin salaamayaa saaxiibada meel kasta aad joogtaan halkan waa hadaleynta 14 saaxiibada ku soo dhawaada muuqaal kooban aan ku eegi doono haddana waa amara leehano ontii ka go'ay haddaan aqalkeeda tago haddaan ag istaago haddana erey uma sheegan kare haddana waa amara leehano ontii ka go'ay haddaan aqalkeeda tago haddaan ag istaago haddana erey uma sheegan kare alelehe waa hubaal inay ka cod macaan badan tahay fanaanin badan oo ay ka mid yihiin inanta lagu magacaabo Fartuun Balbalaarka waliba inanka lagu magacaabo Socdaal Yare saaxiibada barnaamijka xulashada TikTok waxaanu ku soo qaadan doonaa taariikh nololeedka inanta lagu magacaabo Huda Amooni waliba qisada jacaylkeeda ninka lagu magacaabo Sharmaake iminka halkee ay ku nool yihiin xog ku saabsan arrimahaas inuu eegi doonaa saaxiibada sidoo kale waqtiga guurkooda 5 sano ka hor ay isguursadeen iyo waliba falaqeen ku saabsan noloshooda 1 sano ka hor TikTok ayay bilowday hadda iminka waxa ka mid tahay dadka ugu isticmaalka badan aaladaas social media ama dadka ugu caansan weeyaan saaxiibada arrimahaas inuu falaqeen doonaa waxaan idin ka codsanayaa in ugu horeyntii YouTube ka hadaleynta 14 sidoo kale page-ka hadaleynta 14 subscribe waliba hadaba follow inoo saartaan saaxiibada waxaa tihiin dad aad u wanaagsan saaxiibada ku soo dhawaada barnaamijkan oo dhameystiran wana barnaamij loogu magac daray barnaamijka xulashada TikTok oo aynu ku soo qaadan doono inanta lagu magacaabo Huda Amoon iyo waliba saygeeda lagu magacaabo Sharmaake haddana waa amara leehano ontii ka go'ay haddaan aqalkeeda tago haddaan ag istaago haddana erey uma sheegan kare waya saaxiibayaal waxa laga yaabaa in dad badan aad ka keento inanta lagu magacaabo Huda Amoon daadeeda laakiin waa 18 sano jir weeyaan iminka hadda ku nool gudaha wadanka Jarmalka waxaana Huda Amoon ay tahay in markasta iska qalbi furan dabeecadeeda iyadoona daadeeda ay ka yareed 14 sano jir weeyaan markii ay isguursanayeen gacaliyaheedii iminka wada jooga ninka lagu magacaabo Sharmaake deegaan ahaan labada lamaane waxay ka soo jeedaan gobolka baaxada leh ee bari Puntland ka tirsan waa lamaane ku dayasho mudan waa lamaane isku kalsoon markasta waa lamaane markasta niyadiis ku dhisa waa lamaane aad iyo aad u daayar reerkoodana hadda ka adeegoyaane hadda waxay ku nool yihiin gudaha wadanka Jarmalka markii loo eego inanta lagu magacaabo Huda Amoon social media waxay ku soo biirtay sanadkii aynu ku soo ama ka soo gudubnay weeyaane 2020kii bilowga ayayna ku soo biirtay mihiinada la yiraahdo TikTok laakiin iminkan waxay ka mid tahay saaxiibada aad ka loogu jecel yahay aalada lagu magacaabo TikTok dad badan ayaa is weydiinaya Huda Amoon fanka miyaa jeceshahay laakiin Huda Amoon fanka ma jeclo laakiin codkeeda ayaa cod dahabiya markaad codkeeda maqasho runaatii fanaanin badan ayaa kugu soo dhacaya sida Xaliimo Khaliif Magool Qadra Daahir waliba fanaanin badan oo hadda iminkan ba halkan lagu soo koobi kareen hal wiil ayaa u jooga iminkana waxayna rajeynayaan in goordhow markaa reerka uu ku soo biro weeyaan oolaad kale waxaynu leenahay reerkiina ha noqdo mid markaasi wada jira markasto noloshaada ha noqoto walaashay mid markaasi dabcan lagu wada qanacsan yahay saaxiibada ma doonayeen muuqaalkan ku sii dheeraado waxaan halkan ku soo gunaanadayaa waan ku soo gabagabeynayaa dabcan arrimaha ku saabsan inanta lagu magacaabo Huda Amoon waliba Sharmaake saaxiibada ugu dambeyntii waxaan idin ka codsanayaa in hadalheynta 14 hadda follow inoo soo dhahdaan sidoo kalena like-tana saartaan subscribe-na saaxiibada noogu dartaan waana mahadsantiin